بسم الله الرحمن الرحيم داودياشا قيمها بدن ومركله iyo barnaamijkeeni madhaafan waa kulankii afraad oo kamid ah barnaamijka aynu ugu magac darnay madhaafanka muslimka waxaynu kulankan kaga warrami doonaa laba qodob oo aad muhiim u ah oo dahaaradaynu kusoo guda jirnay la xiriira qofku markuu iska daahirinayo wixii ka soo baxay halka kaadida ka timaado iyo labadaasi qaabkeebuu iskaga daahirinaya islaamku waxna kama tagin ilaa way noo cadeeyay sida asalka waa inuu biyo iskaga daahiriyo taa waxa la yiraahdaa al-istinjaa wa izalatu al-kharij min as-sabilayn bil ma waa in labada wado ee kaadidu ka soo baxo ama saxaradu inuu qofku iskaga zuuliyo najaastaasi ma biyo istijmaarkuna wax weeyaan waa in la dhagaxaysto ama wixii dhagax meeshiisa soo galay marka waa in lagu masaxo shay daahira oo mubaax dhagax iyo wixii la mid ah labada kii uu qofku isticmaalo way ka gudayaan sida fiican afdalkiina wax weeyaan in labadaba uu iswaafajin karo ama uu israacin karo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam anas bin malik wuxuu leeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid markuu khalaaga galo aan u qaado aniga inaan yarba waadaantii ay biyuhu ku jirtay markaas nabi maxamed ku istiishoon jiray aisha radiyallahu anha waxay leedahay nabi maxamed wuxuu yiri idha dhahaba ahadukum ila al-ghaib marka midkiin uu baxo meeshii ku xaaji gudanayay ama meel banaan haato ama meel asturan haato sida suuliyo kale ha ku xaaji guto inuu ku daahiriyo bi thalathati ahjar falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi an way ka gudasay saddex dhagax marka tirada ugu yaraad ku isticmaali kartaa waa saddex dhagax ama saddex shay isku mid ah saddex softi ama wax la mid ah marka sidaynu gadaalka sheegi doono waxa muhiim ah inaanay ahaan saaro lafnaaniha marka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam labadaaba wuxuu noo tilmaamay in la isticmaali karo oo la iman karo sidoo kale aadaabta iyo muhiimka waxa kamid ah qofku markuu istijoonayo waa inuu ku istijooda ama ku qabto gacanta bidix ku qabanaya ku meedhaya ama ku isticmaalaya marka waa gacanta midigna dhakarki kuma qabanaya ama xuminta taankeeda biyo ama shayga kale oo isticmaalay sidoo kale waa in saddex wax ka yarna aanu qofkii isticmaalin labada arrimoodna iska ilaaliyo waa saaladii iyo lafti nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu inooga tigi qodobkeena muhiimka waxa weeyaan markan la xaajo gudanayo inuu qofka muslimka iska ilaaliyo inuu ama qiblada qaabilo ama uu daba jeediyo marka xaaladan goormay dhacdaa marka adiga qiblada aan wax weydin lahayn marka aan meel ku jiri ama shay aan ka xig marka waxa dhahdaa ma banaana markuu qofku xaajo gudanayo ee uu meel banaan ku gudanayo saxraa bila xaa'il aan waxba ka xigin inuu ama daba jeediyo ama xaqiiqo jeesto waa nooc kamid ah aadaabta abi ayyub al-ansari ayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka soo wariyay xadiiskaasi inuu rasuulku yiri idha ataytum al-ghaib فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا marka yadna waa qodob muhiim ah hadaba waxaad ka warantaa hadii qofkii uu ku jiro tusaalaano kale meel dhisma ama isagii qiblada wuxuu dhaxeeyaan sida xadiista qaar ay tilmaameen min xadiis ibn umar radiyallahu anhuma culimaduna ay tilmaameen wax dhib ah ama ba'si ma laha laakiin sida afdalka ah ee wanaagsan waxa weeyaan xataa suuliyadeena gidaar kale inta soo dhismay u dhaxeeyaan xaqi jihadi qiblada in intii laga jeedin karo laga jeediyo waa sida saxda xayay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam arintaas uu inoo diiday marka waa nahi karaahiya ficilka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa inoo tilmaamay marka ibn umar wakiilaha nabi maxamed marka ibn umar nabi maxamed seedigiba nabi maxamed wakii qabay umar wuxuu nabi maxamed ma fulay meel u dhow meesha ku xaajo gudanay wuxuu waxaan arkay nabi maxamed oo mustaqbal sham mustadbir al-kaaba xaqi sham u jeeda dhabarkana u jeediyay kaabadii marka waxay culimada qaar ku tilmaamaan daan waxa ay jirin waa xaraan laakiin waxa ay jiraan waa wax la sameyn karo laakiin wax laga fiican sidoo kale qofku markuu suuliga galo waa aadaabta qofka muslimka laga doonayo shariicadeena xataa kama xishoon xaaladii qofku xaajida gudanayay wuxuu sameynaya ama la imanayo aadaabta laga doonayo ee fiican qofka galaya suuli kaniif ama khalaa waxa laga doonayo kow waa inuu markuu galayo bisinka qabsado bismillaah ilaahayna ka magan galo shayaadiinta allahumma inni a'uudu bika min al-khubuthi wal khaba'ith markuu ka soo baxana ilaahay subhanahu wa ta'ala dekaadadii ama saxaradii aanad adigu awoodaad iskaga soo saartay ka keenay caafimaad baad dareentay habi baad dareentay deganaad baad dareentay inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiisato qufraan ka tiraahdo aadaabta laga doonayo waxa kamid ah inaynu lugta bidix markaynu galana aynu ku horeysino markaynu soo baxnana lugta midib aynu soo horeysino aadaabta sidoo kale laga doonayo waxa kamid ah qofku markuu fadhiisanayo in isagoo taagan aanu cawradii fadhiisanayo markuu u dhawaado dhulka ama uu ku fadhiisanayo suurigi inuu markaas u fayto hadii meeshu meel banaan ay tahay waxba laynoo sunneeyay qofku inuu ka dheeraado dadka oo dadka iska qariyo si aanay dadku u arag nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo tilmaamay faa'iidada ay leedahay qofku markuu ducada akhriyo wuxuu ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء
أن يقول بسم الله وحي كلا أسترتا الدعاء أهنا ترى هذا بسم الله إن جنكي وعورضها داوضه إلهي وكدبولي ماركي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سجنا وكاي نوجا ورمي أذابتك لي نجدني حيان محا حاران قفك حاجة جدني دور أرمات بحاران هرت وح حاران بيه فدي إنه قفك كاتشو وحاران سيدك لو حاران قفك إنه كاتشو أما كسحراضه وضدي أما جيتك هرك لها أما بيرتي caamka ee dadka ka dhaxaysay ama geedkii midhaha lahaa ama meelihii biyuhu ay soo marayeen meelaha dadku ay manaafacaadsadaan oo dhan si aan xanuuno iyo cudurrada loo qaadin dadkiina aanay ku karaasan xaraam bay ka noqonayaan qofka waxyaabaha loo diiday ama laga fiican yahay waxa kamid ah marka ay dabayli socoto inaanu kaadi sii deyn laakiin ugu yaraan ama dabayshii uu ka sii jeesto ama wax iska beego si aan u dhicin kaadidiina isaga dib ugu soo noqoto kaadidiina dib ugu soo noqoto ay kugu soo duuduushana waa wax aad iyo aad looga fiican yahay qofka muslimkaana in kaadida ay jirkiisa soo gaadho waliba si fudud ay ku soo gaadho cudur daar la'aan waa wax lagu naarmuto waxyaabaha kale iyadana inoo sugnaa waxa kamid ah inaynan godadka ku kaajin nebi maxamed arinta wadi waxyaabaha kale marka waa waxyaabaha laga fiican yahay marka in qofka muslimka aanu godadka ku kaajin waa wax laga fiican marka waa iska ilaaliyo sidoo kale waxyaabaha aan fiicnayn ee laga fiican waxa kamid ah in qofkii wuxuun ku isticmaalo la xiriira xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala suuliga dhexdiisa maxaa yeelay arrintaasi mowduca iyo meesha uu joogaa meel laa'iq u ah ama u cuntunta xus ama wax xidhiir la leh allah subxaanahu wa tacaala ma aha marka culimada qaar waxay leeyihiin haddii xaajo iyo daruur ay keensato dhib male inuu awraaq ama warqado magaca ilaahay ku qoran yahay inuu la galo haddii ay keensan weydo laga maarmaan aan noqoto mooyaane baahi iyo daruur ay keento caadi haddii halkaa kaga tago in ama la xadayo ama uu ku iloobay ama dhibaato kale ay dhacso ama roob ku daayo haddaba haddii musxaf uu yahay ka war kalaamu rabbil caalamiin ku yaal hadalkii ilaahay oo ahsanul kalaam hadal cid ay ku hadasho ka ugu wanaagsan ugu qiimaha badan leh xaraam bay noqonaysaa lama geli karo ama si muuqato ama si dadban kay noqotaba arrintaas xaraam bay noqonaysaa marka walaalayaal aynu ku dadaalno insha allahu tacaala markaynu xaajo gudanano qaabka shariicadu ay noogu sheegtay inaynu xaajo gudano dahaaradan aynu ku dadaalno oo qofku markuu xaajo gudanayo waa inuu si fiican isku daahiri biyihii ama dhagaxaantii ama waxyaabihii la xukun ahaa dhagaxaanta ama warqad lahaa ama mindiil ama softi lahaa ama saasoo kale marka aadaabta suuliga markuu gelayo kasoo baxay inuu ku dadaalo mar walba aynu xasuusnaano diinteenu siday noogu dadaashay inaasinu kusoo gabagabeynayna wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wa axkam wabillahi towfiiq